wuxuu dhahay waxay leedahay waxa waan akhrinayaa maxaad dareemaysaa waxaan dhahay wax aan dareemayo ma leh wejigaaga bisaan u jeedaa inaad wax akhrinaysid waxay leedahay waxaan jeclaa lahay in aan kalaamka ilaahay maahane wax kale aanan maqal kaas ayaan jeclaa lahay walaal marka waxay isku dayee inay akhriso ayay isku dayaysaa qur-aanka ilaahay bal fiiri bal waa qof aan wax maqal waa dhegoole waa wax hadday soo islaamtay diinta islaamka soo gashay waa amerikaan bal fiiri siday u akhrinayso waxay ku leedahay qalbiga ayaan ka akhriyaa aniga qalbiga ayaan ka akhri karaa aad ay u akhriyaa wariyihii ayaa oy doona bal eeg bal walaal markay akhrisay walaalayaal wallaahi wuu kaamili waayey wuxuu galay ooyin dheer qalbigiisii ayaa gadoomay qof aan wax maqlaynin oo kalaamka ilaahay akhrinaayo war kuwii wax maqlaayay xaggay ka baxeen maxay suubaayaan waxay fasahaadayaan dadkii ase waxay leeyihiin qoote ay diintii waxaas soo dhex gelsheen ay diintii ku dheelayaan ayagaaba diintii qoote u fasahaadayo iyo kitaabka ilaahay wuxuu leeyahay walaalkeen wuxuu dhahay wax ma hadli karto xarafna ma ku dhawaaqi karto haddana laakiin say wax ku barataa dadka kasoo horjeedo ayay waxay ka qaadataa how dhaha xarfaha iyo hadalka sidaas ayay ku baree markaasay suuradda sidaas ayay ku xafidaysaa wuxuu dhahay marka aniga waxay igu tahay uu yidhi wallaahi xalqadan inaan kaamilo ceeb iyo qajilay igu tahay waa kaamili kari lahuu yidhi ma kaamili kari yidhi annaga dhana wuxuu yidhi xishood ayay nagu tahay yidhi kulligeena xishoodnad ahuu dhahay dadkeenna rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dhahay balliguu canii walow aaya war aayad dadka iga gaarsiiya dadkeenna hadlaay oo wax karay inaan hadalno maxaan qabaynaa maxaan gaarsiinaa qofkaas wuxuu dhahay aan waxba maqlayn ayaa 9 qof gacanteeda kusoo islaamtay uu yidhi yaa 9 qof ayaa gacanteeda kusoo islaamtay marka annagana maxaa kitaabka ilaahay xaggee ka joognaa maanta qof soo qabaysa ma leh qof ka hadlaysa ma leh wallaahi wuxuu dhahay annaga ceeb ayay nagu tahay yaa ilaahay hana waafajiyo khayrka walaalayaal ma kaamili kari ayuu yidhi wallaahi xalqadan marka akhwaani